Hi guys, meel baa joogtaan soo dhawaada. Magacaygu waa Maax, kaasoo doonaya mar walba inuu idinla wadaago cryptocurrency-ga iyo wax badan markaas la xiriira dadka janaalkayga ku xiran is dhihi karo way ka faa'iideysan karaan fursadaha markaas jira. Maanta waxaan uga hadli doonaa keliya waxa waaye maadaama lagu jiro xili ardayda ay jaamacadaha kasoo qalin jebinayaan ay doonayaan master, qaarkood ay doonayaan inay undergraduate yihiin, bachelor ay doonayaan inay ka faa'iideystaan, kuwa qaar oo master ah oo markaas doonayaan inay PhD xareystaan. Saddexdaas qeyboodba waxaan u hayaa fursad markaas ay ka faa'iideysan karaan oo loo yaqaano China Scholarship Government. Dowladda China deeq waxbarasho ee bixiso ee ugu talagashay dhammaan dadka markaas dunida daafeeda ku nool inay ka faa'iideystaan. Khaasatan markaan waxa u faa'iideyn doonaa dadka Soomaaliyeed kaasoo doonaya marka maanta in programkan ugu faa'iideeyo dowladda China deeq waxbarasho ee bixiso, maadaama ay awoodi karin dowladda China markay deeq waxbarasho ee bixinayso laba qaabood oo ku bixisaa. Qaabka guud darto asina qaana oo dhaqaale oo ma haysan qofku bachelor oo ku bixiyo ama master oo ku bixiyo, waa kaasoo iska gooni general baahi ay jirto waa. Laakiin dowladda China marka la joogo kale laba qaabood oo scholarship u bixisaa. Qaab waxa waaye safaaradda ee waddankaas ay ku leedahay Soomaaliya oo kale tusaale ahaan ayaa waxaa la siinaa deeq waxbarasho iyadoo safaaradda loo soo marsiinaa. Safaaraddaas marka waxa waaye waxay siinaysaa dowladdana iska naqaanaa Soomaaliya marka la joogo waxa waaye in aad deeq waxbarasho ay heshaan waxay u baahan tahay xildhibaan ama wasiir ama qof markaasi mas-uul ah oo programkaas ku dhameeyo saa markaasi deeq waxbarasho oo China ugu faa'iideysato. Qaab labaad waxa waaye dadka oo aan awoodi karin howlahaas iyo inay online-ka ay ka faa'iideystaan ee kusoo ablaagareeyaan China Scholarship Government iyadoo markaasi dowladda China deeq waxbarasho ay siinayso iyadoo marka si toos ah jaamacadda ugu dalbanaya. Marka qaybtaas markaa joogto marka saddex qaybood oo kala baxdaa waa qayb loo yaqaano category A, category B iyo category C. Saddexdaas qaybood marka deeq waxbarasho ay ku bixisaa dowladda China. Category A waxa waaye safaaradihii dowladaha la siinaa. Marka qaybtaas waxa waa haddii xildhibaan iyo dowlad qof mas-uul ah haysanin category A iska daa maskaxdaada ay soo gelin. Waxay imaanaysaa marka oo videona si fiican uga hadli doonaa maadaama dad badan baahidooda ay jirto ay u baahan yihiin inay fursadaas ay ka faa'iideystaan. Waa dadka category B ah. Category B waxa waa dadka xildhibaan heli karin, dad mas-uul heli karin, laakiin wixii u baahan deeq waxbarasho hadday tahay bachelor, hadday tahay master, hadday tahay PhD, dhaqaalahooduna aad u yaryahay. Dowladda China ka doonaya ama waddanka China inay wax ka soo bartaan waxbarashadooda qaybtooda labaad ama qaybta koowaad ee doonaya inay ka faa'iideystaan. Qaybtaasna waxaa loo yaqaanaa category B waa. Category B marka jaamacadda iyo dowladda si toos ah ugu dalbanaysaa ayadoo markaas online-ka ugu xareynayso, saas aad deeq waxbarasho ugu faa'iideysanayso, hadhowna category B aad dooranayso. Waayo isla automatic systemka wuxuu ku aqoonsanaa iyo macal dowladdii iyo macal jaamacaddii aad dalbanaysa markaas deeq waxbarasho ah. Haddii category B aad doorato aad tahay qof online-ka kasoo ablaagareeyay deeq waxbarasho doonaya, isla automaticna waxa waaye deeqaas waxbarasho. Haddii shuruudaha ama ruleska markaas jiro oo laisku siinaa deeq waxbarasho aad soo raacdo, si toos ayay dowladda markaasi deeq waxbarasho ay ku siinaysaa. Marka ruleska la iska doonaya, sharciyada la iska doonaya maxay tahay? Ruleska marka sharciyada la iska doonaya saa ugu faa'iideyso deeqahaas waxbarasho waa ruleyadan hadda soo socda. Rulka koowaad maxay u taagan tahay CSG waa China Scholarship Government waa deeq waxbarasho ee dowladda China ay bixiso waaye. Ruleska marka sharciyada la iska doonayaan inay ka faa'iideysato marka la joogo China Scholarship Government waa 7 rule waa ama 7 sharci. Intaan gudagelin ka hor 7 sharci please haddii aad channelkayga ku cusub tahay hadda subscribe dheh. Sababtu maxay tahay? Waa ujeedaa in wax ku faa'iideyno scholarship China ay ka faa'iideysanayso deeqaas waxbarashana shuruudaha la iska rabana aad si fiican kula wadaagi doono. Waayo marka aad u diidaysaa marka inaad channelka subscribe aad dhahdo. Subscribe dheh. Sidoo kale like star videogan haddii uu ku qanciyay macluumaadka markaas ku jira. Sidoo kale ha iloobin marka inaad asxaabtaada la wadaagto si ay deeqaan waxbarasho ay ugu faa'iideystaan maadaama deeq waxbarasho ee dowladda China ay bixinayso. Deeqan waxbarasho marka wuxuu soconaa ilaa bisha April waa. Sanad walba marka waxa waaye oo bisha April ah deeqan waxbarasho way furmaan iyo December labadaas ayay furmaan. Marka intii bishan aynan dhamaanin April waa Chance ku banaan waa ka faa'iideysan karti waa. Haddii aad tahay undergraduate qof aad qalin jebinaya, haddii aad tahay bachelor degree iyo master degree
even xataa PhD waa ka apply garay kartaa. Waxaan gudagalna marka shuruudda koowaad. Find waxaa raadisaa university administration or agency number. jaamacadaha markaas dowladda ay bixiso Jane scholarship admissionkeeda soo hel ama agency numberkeeda. Maxaa lala jeedaa? micnaheedu waxa waaye jaamacadda oo deeq waxbarasho markaas Jane scholarship government ugu talgashay. linkiga hoose descriptionka ku arki doontaa oo linkiga koowaad numberisa u yeeli doonaa. linkiga koowaad marka oo 1 ah tag shuruudahan hadda ku sheeg xataa meesha ku qoran yihiin waa soo khulaasiyay. shuruudaha marka waxa waaye jaamacadda is leedahay kuliyadaada. waayo jaamacadda waxa waaye medical jiro, law jiro, engineering jiro. jaamacadaha markaas jira midka is leedahay waa jaamacadana ku qalmato ay ku wanaagsan tahay, jaamacad fiican waaye. jaamacadaha baahidaada xaqabtiraysaa, kuliyadaada bixisaa. jaamacadahaas marka waxa waaye raadi. kadib markaas jaamacadda waxaa marka ka doonaa marka in jaamacadaas qaybta admissionkeeda aad tagto. admissionkeeda markaa tagto kadibna jaamacadda waxay ku sii doontaa waxa la agency number. agency admissionkeeda marka waxa waaye markay ku siiso isla automatic marka waxa waaye agency numberka ku sii doonto marka jaamacadda marka admissionka ka dalbanaysa agency numberkaas soo qaadanay. waxaa la imaanaysaa marka Jane scholarship loginka la imaanay. marka la imaado kadib marka qayb waxaa jirto oo la gelinayo marka agency numberka jaamacadda si hadhow marka dowladda ay la xiriirto jaamacaddaas ay isticmaalaysa marka agency numberka ay ku soo siisay jaamacadda si hadhow marka aad deeqaha waxbarasho u hesho. si jaamacaddaas marka hadhow u tagto dowladdana ay kaa bixiso wixii markaasi oo tasiilaad oo la xiriira jaamacaddaas, haddee tahay fanki, haddee tahay meesha ajiifleed iyo wax badan la xiriira. marka intaan wax ablaagareyn ka hor admissiona ka hore inaa hesho jaamacadda. admissionka marka haddii aad isleedahay waqti badan kaaga baxaayo admission muu baahnid iska naqaanaa Soomaaliya iska naxne intaas procedure-ka waa nagu dheertahay. even marka haddii aad dhinacaas ay kugu dheertahay or waxay isticmaalaysaa agency number. agency numberka waxa waaye jaamacadaha markaasi oo anaa ku soo diyaariyey oo qaybta descriptionka ka arki doontaa agency number waa. jaamacadaha marka ku soo koobo jaamacad hiblaayo agency numberkeeda kugu qoran. agency numberkaas qaado kadib qaybta loginka tag. agency numberka lagu weydiin doono qaybtaas geli. waa agency number oo aniga si fiican ugu soo shaqeeyay qayb descriptionka taala. agency numberkaas ka qaado adoon admissionka oo procedure-ka dheer oo jaamacadda admissionkeeda aan u dalbanin. admissionka waxa laga yaabaa in waqti ay kaaga baxaa is leedahay, sidoo kale admissionkaas oo waqti badan kaaga baxay. marka agency numberka jaamacadda admissionkoodii agency numberka ay soo bixiyaan oo automatic way diyaarsan yihiin. tag kadib waxa waa agency numberkaas qaado. shuruudda koowaad waa admissionka waa heshay iyo agency numberka ee jaamacadda ku siisay. kadib waxaa la aadaysaa marka qaybta linkiga labaad la aad. linkiga labaad markaa la aado kadibna registration aad sameynaysaa. linkiga labaad registration markaas qaabka la isku diiwaangeliyo waa iska easy waaye. email iyo macluumaadkaaga magacaaga saddexan buuxi. kadib waxaa kusii doonaa marka emailka markaa geliso waxaa lagu soo diri doonaa emailka verificationka linkigaas ku dhufo. kadib waxa waaye mar labaad gal oo linkiga markaa ku dhufato kadib waxaa kuu soo baxay qaybta loginka waxaa gelisaa marka emailka iyo passwordkaaga. automatic marka emailka iyo passwordkaaga aa gelisi agency numberka marka oo already descriptionka hoos ay kugu qoran yahay soo qaado kadib geli macluumaadkaas. markaa gelisi kadib marka agenciyada numberka oo qaybta descriptionka ku siiyey dowladda Jane waxay ku ogashaa in 3 jaamacadood kaliya aad doorato. waa qodobka labaad waa jus waxaad doorataa 3 university only. 3 jaamacadood is leedahay jaamacadaha markaas ugu jecesha in wax ka barato. hadhow marka jaamacaddu sababta 3daas u dooranayso xitaa dowladda si hadhow 3daas jaamacadood xooga ama diiradda ay kugu saarto saa u hesho 3daas jaamacadood. haddii jaamacadda kuwaad heliyo jaamacadda labaad ama jaamacadda saddexaad ay ku dhameynaysaa dowladda. agency numberadoodan waa qaadanaysaa 3 jaamacadood oo agency number ah. hal agency number ha gelinin 3 jaamacadood oo agency number leh oo qaybta descriptionka agency number of university kugu qoran qaybtaas ku dhufo. kadib agenciyada numberka 3 xarf ka mid soo qaado ku buuxi qaybta loginka. shuruudda saddexaad marka descriptionka jaamacadaada transcript for bachelor or master degree. haddii aad tahay bachelor degree haddii aad tahay aad doonayso master inaad ka faa'iidaysato
jaamacadaada descriptionkeeda geli oo transcriptiga jaamacadaada geli. haddii aad master haysatana masterkaaga transcriptigiis geli. kadib marka waxaa waaye qaybta waxaa ku arki doontaa loginka ku arki doontaa macluumaadka anaa kuu soo koobay waa iska easy. qodobka afraad waa isla soo noqdeen qodobka afraad iska dah. qodobka shanaad medical form waxaa laga baahan yahay warqadda caafimaad. warqadda caafimaadka marka waxaa kuu sheegaysaa marka warqadda caafimaad isbitaalada markaas jira oo haddii aad muqdisho kale joogto isbitaalada muqdisho kale kuwa ugu caansan oo kale tag ama warqad markaas caafimaad kuwa bixiya. kadib marka warqadaas caafimaad soo buuxi iska soo jeekare caafimaadkaaga. kadib waxa waaye iskaan ku soo qaad oo attach garee qayb loogu talagalo la gelinaya jiro. kadib qodobka lixaad letter supervisor waxaa la imaanaysaa warqad la recommendation letter ama supervisor laba xaba laga baahan yahay. hana ka tagin sababta waxay tahay labadaas xabo waxay kaa saacidaysaa haddii aad tahay bachelor degree book thesiska aad diyaaratay supervisorkaaga oo hadduu yahay master ama hadduu yahay PhD laba xabo ka soo qaado. waxaa kuula talinaa macalinkaaga oo aad ka dhignaysa supervisorka oo warqadda recommendation letter ku siina inuu PhD yahay oo darajadaas uu haysto. laba xabo soo qaado. qaybta kale shuruudda kale oo aan kala qaadnay oo hadaayo qodobka afraad aan u rabay waxaa waaye oo noo soo noqday oo qaybta description bachelor ka ahay waa study plan. waxaa laga rabaa marka mustaqbalka waxyaabaha jeceshahay oo kale inaad diyaariso. 3 qayb oo kala qaadaysaa dowladda China oo kale deeqa waxbarasho haddii ay ku siiso kale iyo qayb oo introduction noloshaada ugu hadlayso iyo future-ka waxyaabaha damacsan tahay kulliyadda aad ka baran doonto jaamacad oo kale. study plankaas diyaari ama research proposal oo kooban. kadib aa ugu codsanaysa dowladda China wax badan oo deeq waxbarasho la xiriira. 3 category markaa ka hadasho study planka aad diyaariso. haddii study plan ay haysanin sample aa kusii doonaa insha Allah ila soo xiriir. qaybta xigta marka waxaa waaye ama description course ku muujin doonaa. qodobka 7 attach all original document dhammaan dokumentiyadaada oo original ah upload ku dheh geli documentiyada loogu talagalay. kadib marka waxaa waaye automatic marka waxaa waaye qaybta personal informationkaaga sawirkaaga oo tester ahaa iyo baasaboorkaaga ha iloowin inaa kuwaasna waxaa waaye waa muhiim waaye. dhammaan marka informationaas hadaa gelisho kadibna aa u dirto submit insha Allah scholarshipkaas waa heli doontaa. waa scholarship markaas dowladda ay bixiso. hana iloowin inaa markaas category B aad doorato sababta waxay tahay toos automatic waxaa ka codsanaysaa aad direct jaamacadda in scholarship ay ku siiso dowladdana markaas ay kugu saacidaysa in scholarshipkaas ay hesho. ha dooran category A safaaradaha iyo waxaa lagu talagalay markaasi dadka markaasi mas-uuliyiin xildhibaanada haystaan. haddii markaas safaaraddaas oo lagu talagalay in deeq waxbarasho ay siiso dowladda markaas waddanka ay ku leedahay oo kale. anaga hadda tusaale safaaradda Soomaaliya oo kale China way ku leedahay. marka haddii deeq waxbarasho la bixinayo dowladda China waxay toos u siinaysaa safaaraddan toos waxay u siinaysaa dowladda Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliyeedna markaa rabto inaad deeq waxbarasho ka heshana xildhibaan ama mas-uul lagaga baahan yahay. dhammaan marka informationka waa intaas. ha iloowin marka laba description aa jiro. mid waa jaamacaddii oo macluumaadka iyo detailkii iyo waxa ka helayso inta hadda idin soo koobay shuruudihii. qayb kalena waa loginka aad gelinayso userka aad ka samaysanayso waaye. agency numberadana jaamacaddana hoose diyaar ay ku yihiin. guys aada umahadsantihiin. waxaan rajeynaa inaad guul idinku soo dhammaantood scholarshipkan aad ka faa'iidaysan doontiin. hana iloowin inaa markaas channelkan subscribe aa dhahdo sidoo kalena video like aa saarto. guys bye bye.